Assalaamu calaykum. Soo dhawaada saaxiibada qaaliga ah ee ku xiran channelkeena Bro English Academy. Maantayto waxaan ka hadli rabnaa mowduuc kale oo aad u xiiso badan oo ku saabsan English vocabulary af Soomaali. Erayo English ah ayaan waxaan ku sheegi doonaa af Soomaali. Marka maantayto erayadeena waxay badanaa ku saabsan yihiin arrimaha dowladda oo kale iyo waxyaalo ku saabsan maaragtay ciidanka iyo maxkamadaha. Marka ereyga koowaad wuxuu leeyahay dispute, yacni muran, meel lagu muransayo kale. Marka tusaale ahaan yacni dhulka ay Soomaaliya ku muransan yihiin oo Kenya oo kale waxaan dhihi karnaa dispute area, yacni goob lagu muransan yahay. Misery, ereyga misery waa murugo. Murugada markii aad u daran tahay waxaa lagu magacaabaa misery, murugo. Ereyga misery waxaa la macnaa sad, murugo. Ereyga ku xiga waa civil society, yacni bulshada rayidka. Civil society, bulshada rayidka. Suffer waa cabasho ama tabasho, qofku markuu tabanayo kale. I am suffering a lot of problem, anigu waxaan ka cabanayaa dhibaato aad u badan. Reject waa diidmo, yacni when you apply a job then someone reject to accept the job. yacni reject markii aad shay intaa codsatid laga soo diido ama laga aqbali waayo ayaa lagu magacaabaa reject. Face to face meeting, yacni kulan weji ka weji ah, laba qof markii ay miiska fadhiga isku yimaadaan ayaa lagu magacaabaa face to face meeting. Kulan weji to weji ah markii ama labada qof si yacni toos ah u wada kulmaan ayagoo aan ku kulmayn internet, like si toos ay u kulmaan. Face to face meeting. Ground troops, ciidamada dhulka. Ground troops, ciidamada dhulka. Ceasefire, ereyga waxaa lagu magacaabaa ceasefire. Waxaa lagu magacaabaa ereyga ceasefire, xabad joojin, yacni in xabad joojin, yacni laba qabiil baa isdagaalo kala camal amase waxaan ku dhahaa laba wadan baa isdagaalay, yacni kadib waxaa labadii wadan loo sameeyay xabad joojin. Executive committee, yacni guddiga fulinta. Executive committee, guddiga fulinta ayaa lagu magacaabaa. Ereygana noogu xiga waxaa waaye district court, maxkamadda gobolka. District court, maxkamadda gobolka. Supreme court waa maxkamadda sare. Supreme court waa maxkamadda sare, maxkamadda sare ee waddanka uu leeyahay, ama the highest court of a country waa maxkamadda ugu sarreysa ee waddan uu leeyahay ayaa lagu magacaabaa Supreme court. Ereyga ku xiga waxaa waaye court of appeal, maxkamadda racfaanka. yacni markii laba qof xukun markuu dhaco kale, tusaale ahaan yacni laba qof markuu xukun markay rido maxkamaddu waxay leedahay qofkii racfaan qaba intaasoo beri wuu ku imaan karaa, racfaan wuu qaadan karaa. Marka court of appeal, maxkamadda racfaanka. Press conference, shir jaraa'id. Press conference, shir jaraa'id. Officers, ereyga officers waxaa lagu magacaabaa saraakiil. Officers, saraakiil. Prediction, saadaalin. My prediction about the match between Manchester United and Man City is 2-0. haddaan dhaho yacni saadaalinteyda ku saabsan kulanka u dhexeeya Manchester City iyo Manchester United waa 2-2. yacni saadaalin markaa shay saadaalisid wax dhici doona, tusaale ahaan ciyaar oo kale waxaa lagu magacaabaa prediction, saadaalin. Innocent, yacni qof aan dembi gelin, yacni qofka markuusan dembi gelin oo kale waxaa lagu magacaabaa innocent. For example, qof aan dembi gelin oo kale yacni maxkamaddu iska xukuntay, ama qof aan dembi gelin baa yacni wax lagu sameeyay. Fun sport waxaa lagu magacaabaa goob madadaalo. Fun sport, goob madadaalo. Next page, yacni page-kan page ku xiga. Tusaale ahaan markaad waraaq akhrinayso oo kale amase markaad buug akhrinaysid, page ku xiga. Cashirkeena halkaan ayaan ku joojinaynaa. Don't forget to subscribe and like to our channel.